wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cabde ayaa habeenkii xalay ahaa xadhiga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay gudaha magaalada Gabiley. Mashaariicdaasi oo ahayd mashaariic lagu iftiiminayay magaalada gudaheeda isla markaasina wax weyn ka tari doona amniga iyo isku socodka guud ahaanba magaalada. Ayaa waxa hirgeliyay golaha deegaanka degmada Gabiley iyadoo maalmihii u dambeeyay laga dareemayo kor u qaadista bilicda guud ahaanba magaaladaasi Gabiley. Munaasabaddan oo ay goobjoog ka ahaayeen barasaabka gobolka Awdal, barasaabka gobolka Gabiley, doomiyaha golaha deegaanka Amiin Cumar Cabdi, xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Gabiley, mas'uuliyiinta halka ka hadashay dhammaan hadaladoodii kamid ahaa. halkan caawa waxaan isugu nimi inaynu xariga ka jarno mashruuc solar ah oo iftiiminta wadooyinka. mashruucaas oo kamid ah mashaariicaha golaha deegaanka uu ka fuliyay Gabiley isla markaana ah mashaariicaha ugu wax ku oolsan oo wax weyn ka tari doona bilicda magaalada, ammaanka iyo guud ahaan xasiloonida degmada. runtii mashruuca waxa weeye mashruuc dawladda hoose ama golaha deegaanku si toos ah u fuliyay. saacada wasiir waxa xusid mudan in mashruucani sida degmooyinka qaar aanu ahayn mashruuc idinaga caawisay. waxa ku baxay lacag $60,000. lacagtaasi waa lacag aanu ka bixinay dakhligii dawladda hoose cashuurtii dadweynaha. علي محمد ورن عبده وعاو حريق كجرو مشروعا سولار سيستمكا ee magaalada Gabiley lagu soo kordhiyay. runtii waa horumar aad la taaban karo waana tallaabo hore loo qaaday weeyii ku hambalyeynayna duqa iyo golaha deegaanka iyo dhammaan maamulka degmada. leerka magaalada ku yaala waa leerkii nidaamka uu sheegay waa hantidiini in ay ilaashtaan baa loo baahan yahay nadaafadda in ay ilaashtaan baa loo baahan yahay. waxa kale runtii halkan aan jiraan ka caaw ka sheego waxa jira niman ganacsatayaal oo muxuu ahaayay leerka shida magaalooyinka iyo degmooyinka iyo gobolada nimanka waxaan u arkay inay hankiliyaan waxa weeyaan qofka aan isaga waxba dhaafin. Abdi Abdullahi Daahir, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, Gabiley.